tuulada Kalaadsi waxa ay ku taallaa dalka Kazakhstan waxaana ay qiyaastii 400 oo kiiloomitir waqooyi galbeed ka xigtaa caasimadda dalkaas iyadoo oo xuduudda waddankaasi Ruushka la wadaagana 230 kiiloomitir u jirta. Tirada dadka tuuladan ku noolina waxa ay gaadhayaan 680 qof. 2010kii ayaa arrin ugub ku ah lagu arkay tuuladan kadib markii ay gabadhi si kadis ah u seexatay iyadoo oo dad la sheekaysanaysa waxaana ay huruday muddo 2 maalmood ah oo xiriir ah kadibna si iskeed ah ayay u soo toostay. dadkii way la yaabeen waxa gabadhan ku dhacay balse maalmo kadib waxa lagu warhelay hurdadii oo dadkii ku sii baahaysa ilaa 130 qof ayay arrintani ku habsatay. qofku isagoo oo shaqadiisa maalinlaha iska wata ayuu buu seexanayay qaar gaari wada kuwa telefoon ku hadlaya dar cunto karinaya iyo kuwa waxyaabo kala sameynayaba umay kala aabayeeleen amaba kumay simeyn chance ay meel beersan ku leedaan. waxa ay arrintani kaga wareerisay aqoonyahankii dalkaas gaar ahaan dhakhaatiirtii iyo wasaaradda caafimaadka. 2014kii ayay ahayd markii haddana si dardar leh hurdadaasi bulshada ay ugu baahday. waxa la arkay ardaydii oo iyagoo duruusi dhiganaya koox u gam'aya iyo waliba macallimiintii oo iyaguna seexanaya. sidoo kalena waxa gabi ahaanba joogsaday wax soo saarkii magaaladaas oo dadkii waxa ay noqdeen kuwa hurda iyo qaar la tacaalaya kuwa hurda. waxa qofka ugu yari uu jiifayay 2 maalmood ka ugu badanina 6 maalmood ayuu hurdayay. sidoo kalena qofku haddii uu magaalada ka baxo waa uu ladnaanayay. arrintani gaar kuma ahayn tuulada dadka degan waxa kale oo ay haleelaysay qof kasta oo soo booqda. sidoo kalena bisadaha iyo xayawaanada guryaha lagu dhaqdo iyaguna waa ay asiibtay hurdadan yaabka lihi. muddooyinkii dambe waxa dadkaas hurdada u dheeraa qarow iyo riyooyin xunxun waxaana ay arrintani xalxidhaale ku noqotay aqoonyahanka dalka Kazakhstan iyo waliba dalka la jaarka ah ee Ruushka oo iyaguna u soo diray cilmi baadhayaal arrintan u dhabagala. arrintan xalxidhaalaha aqoonyahanka ku noqotay waxa lagu sameeyay daraasado badan oo waxa sababaya lagu raadinayo. qaar ka mid ah waxa ay tilmaameen in sababtu ay tahay macdanta uraniumka oo ka soo kaahaysa god daboolan oo ay 80maadkii midowga Sofiyeeti qodan jireen balse taasi wax lagu qanco ma noqon sababta oo ah wax ka haas muujinaya laguma arag tuulada inkasta oo uu godku aad ugu dhow yahay. doodda ugu xoog badan waxa ay tahay in kaarboonku aad ugu badan yahay hawada tuuladaas. ugu dambeyntiina dawladda waddankaas waxa ay go'aansatay in ay dhammaan dadka tuulada degan ay ka rarto magaalada iyadoo oo u daad kuraysay magaalooyinka kale ee ka fogfog.